xil wareejintani oo ka dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ah saraakiil ka socday taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaana xil wareejintan sameynayay taliyihii hore ee qaybta 27aad jenaraal maxamuud maxamed macalin koronto iyadoo xil wareejinta lagu wareejiyey jenaraal axmed maxamed calasow tareedisho. kulankan xil wareejinta ee ka dhacay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa uu taliyihii hore ee qaybta 27aad uu ka hadlay waxqabadka iyo sida loo baahan yahay in dardar loo geliyo howlaha ciidamada qaybta 27aad ee xoogga dalka Soomaaliya. maanta meesha waxaan joognaa xil wareejin howlihii inta badan oo soo dhamaysanay waxaan joognaa in aan mataqaanaa maaragtay maanta si sunnada ahayd wadada ahayd aan marno wax joogtaa oo la wada maro inkastoo shalay aniga cidna xil kala wareegin maanta waxaan ku wareejinayaa nin saaxiibkeeya oo jornaala kana tirsanaa qaybta qoran oo cusbeen oo guuta ka hayay leedaha jenaraal axmed tareedisho awada taqaanaan kuma cusba laakiin aniga meeshaan ka bilaabo waxay ahayd weli ziiray taagintahay inkastoo hadda weli ziiray taagintahay haddana waxaa u bilaabay qaybtan waa qayb cusub ciidamada waa ku soo biirtay awal qaybihii hore jiri jira ma aha waxaa la yidhahdaa toddobaatanaad baa la yidhahdaa waxay ka bilaabataa barca dhinacan waxay ku tagtaa matabaan dhinaca kale xeebtay ka bilaabataa waxay ku tagtaa dhinaca hirshabeel inta hirshabeel xuduudeeda ee laagta ayay xukuntaa oo cadowga iyo mataqaanaa iyo difaaceedaba ay u taagan tahay waa dhul ballaaran qaybtan intay xukunto. jenaraal axmed maxamed calasow tareedishe oo lagu wareejiyey xilkan ayaa waxauu hadal kooban oo halkaa ka jeediya uu sheegay inuu aad ugu ammaanayo waxqabadka taliyihii hore ee qaybta 27aad isagana uu u taagan yahay in qaybaha ka dhiman howlaha shaqo in markaasi hore uu sii dhaqaajin doono. aad ugu mahadcelinayaa jenaraal koronto shaqo badan uu soo qabtay howl badan uu soo qabtay meel wuxuu ka bilaabay waxba oolin meel fiican uu soo gaarsiiyey annagana meeshaan kasii ambaqaadi doonna hadduu ilaah yidhaahdo aadan mar labaad ugu hambalyaynaa uuna maxaan ku yidhahdaa aan leeyahay ilaahay ajri xasanaada kaa siiya waxaa soo qabatay waanu kula joognaa kaama tigin insha allah qaybtaadi waaye soo waxaan ku yidhahdaa waa nala sii joogtaa insha allah aada u mahadsantihiin. jenaraal axmed maxamed calasow tareedisho ayaa qaybta 27aad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay ka howlgeli doonaan deegaanada Hirshabelle sida xogaha la helayo ay sheegayaan.